waxaad aniga ii doorateen hal waxaasoo dhan laga sugayo dadnimada daacadnimada kartida maxaa dulqaadka waxyaabahaasoo dhan hawl laga sugayo ayaad ii doorateen waana hawl runtii aad iyo aad u adag waxaan filayaa anigu inaan dadaalo insha allah waan isku dayo inaan waxyaabahaas laynoo doortay ee la sheegay muhiimadda ee u ah sumadda u ah ama u ah inay inoo saamaxaan inaynu gaadhno meeshii aynu ku soconay anigu inaan intaa insha allah ku dadaalo idinkana sidoo kale waxaa laydinka baahan yahay inaad intaasoo kale la timaadaan haddii inta aynu helo waxaynu runtii ka gal'i doonaa taraagii dheeraa aynu soo gallay meelaha badan aynu ka nimi reeraheennu aynu ka nimi shaqooyinkeennu aynu ka nimi hurdala-aanteenu ku dhacday waxaasoo dhan waynu ka gal'i doonaa waxaynu odhan karnaa ni wax allaale wixii dhacay ee aan soo maray ee daalahaa maxaan dhahdaa mararka qaar maxaan dhahdaa in shaqadu inagu adkaato waxaasoo dhan waan ka gal'i karnaa waa haddii aynu la nimaadno waxyaabaha aynu aasaasiga ah ee looga baahan yahay inaynu hore u soconno marka taas waxaan runtii sheegayaa 2 cashaynu halka fadhinay subax kasta waynu soo kacaynay maalin kasta hawl baa la geliyey caawa waxaa laga yaabaa inaynu 15 saacadood shaqaynaynay 15 saacadood waxaynu u shaqaynaynay muddo dhalkoodu wuxuu ahaa inaynu soo saarno guddiyo kala nooca oo badan oo qiimo leh waxaynu soo saarnay ururku siduu ekaanayay waxyaabuu kaga duwanaanayay ururada kale sumadii lagu garanayay ururka sumadii lagu garanayo tii horeysa shalay laga hadlay wuxuu kaga duwan yahay maartay maxaa caddaynaya inuu yahay ururkaasi urur leh matalaadii qiimayntii sawirkii iyo dadaalkii ay ummadda Soomaaliyeed u baahnayd waayo taas ayaa muhiim ah waxa isku keenay waxay ahayd wax kale maaha waxaan taraaga soo galay aynu soo marnay waddooyinka dheer aynu soo loloonnay aynu soo jilanay aynu dadaalaynaa in berrina ugu noqonayna insha allah aynu waddooyinkii dheeraa u marayna sheekha sida airportka dhibaatada ku dhacday ay ognahay iyo waqtiga uu soo qatay oo North America ay ka yimaadeen waxa weeye uun kelmada kelmada waxa weeye inaynu ilaalino ummadda Soomaaliyeed sharafteeda midnimadeeda dadnimadeeda iyo dadaalkeeda inta haddaynu ilaalino waxaas muhiimadda ay leedahay taasay ahayd muhiimaddaasna waxaa lagaga midho dhalinayaa saan sheegay waxyaabaha aan inoo sheegay insha allah kuma dheeraanayo idinma mahadnaqay runtii ilaahay baa mahadle waxaan idinku mahadnaqayn hawshiina waa qabsateen runtii anigana inaad ii mahadnaqdaan maaha laakiin waa inaan igu mahadnaqdaan waxa weeye ilaahay ka sugo waxa aan qabto waayo mahadnaq iska cidla ah oo maartay hebel waa mahadsantay uma baahnin waxaan u baahannahay sida sheekhu sheegay waa hufnaan karti iyo dadnimo iyo daacadnimo waxa daacadnimada ka mid ah markaynaan shaqaynayno waxba qabanayno isku qusayno runta isku sheegno taa macnaheedu maaha haddaan runta isku sheegno macnaheedu maaha inaynu isku qaskacayno waxa weeye inaynu si kacalnimo ah oo siduu sheegay sheekhu ah oo dadnimo ah oo waayeelnimo ah inaynu isugu sheegno insha allah weeye oo aynu intaan isku yeelno nahna war waxaasa loo baahan yahay in la hagaajiyo oo de adiguna aad waxaagii qabatay maaha inaad intaad waxba aanad qaban oo aanad seexatay aad tiraahdo waryeedhaniyow qoladani waxa ma qabanaysa aan ku qayriyo inaad tiraahdo maaha waa inaad adiguna hawshaada ka soo baxdo dabeetana aad dadka kalena ku tiraahdo war hawshooda ka soo baxaan markaas meel ayaynu gaadhaynaa kuma dheeraanayo anigu waan runtii waan soo gunaanadayaa berri waynu inshaan inteena badan way kala noqonaynaa waynu maxaan dhahdayay waynu meelaheenu ka mid waynu ku noqonaynaa qaaradaha adduunka ka midsan anigu inta dadaalkayga kartidayda waxaan ku dadaali doonaa insha allah guddiyada iyo dadkii guuda ee kasoo qayb galayba inaan xiriirkiina hagaajiyo oo aan mar walba idinla socodsiiyo insha allah inta awooddeeda meesha wax marayaan waxa qabsoomay wax aan qabsoomin waxaan ka jeclaan lahaa idinkuna inaydaan iska aamusin oo dhan email buu soo diro shiraan beri hore tegay buu ahaa waxaan jeclaan lahaa idinkuna magaalooyinka ku noqotaan wixii warbixinana soo siisaan taasi baan markaa dhiirigelinta iyo dadaalka sii badanaysa insha allah waad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh